السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين بداوضاyaal ku soo dhawaada channelkeeni ay Reeb Media. Marka hore subscribe dheh channelka lana wadaaga asxaabtaada. Maantana waxaanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee qisadii murugada badneed kuna dhacday gabadhii u dhalatay dalka Ruushka. Waxay noo joogtay maalintii hore isagoo Khalid ku soo laabtay gurigiisii kana sheekay isagoo iska dhaqay dhiigii wajigiisa ku yaalay. Waxay ka sii bilaabmaysaa qaybta saddexaad ee inuu soo gudbinayna maantuna. Khalid waxa uu leeyahay anigii waan soo badbaaday laakiin waxaan ka qabay cabsi aad u badan xaalka gabadhii xaaskayga ahayd. Waxaan soo qaaday sawirkeedii hortayda ayaanan dhigay saas ayaan u fiiriyay. Waxaan idhi ma ka badbaadi doontaa feerka iyo laadka adoo ninaadu adkaysan weyday iyadoo gabadha say ugu adkaysani. waxaan isdhahay amay nafta kaga qaadaan gabadha say u dilayaan. shaydaan ayaa qalbigayga ku soo riday gabadha say u dilayaan ayay ka noqoni diinteeda adigana adoo kaligaa ah ayaad ku noqoni waddankaagii. waxaan haddana isdhahay amay siday u ciqaabayaan ay sheegtaa meeshaad joogtid oo ay kuugu yimaadaan qolka. waagi ayaa ii bariyay anoo murugaysan. waxaan soo aaday gurigii oo aan ka fogayn meesha aan joogo si aan xaaskayga xaaladeedii u soo ogaado. meel dheer ayaan ka soo fiiriyey bal inaan arko xaaskaygii laakiin si kadis ah ayaa albaabka loo furay. waxaana ka soo baxay saddexdii nin ee aniga garaacayay iyo aabbahood iyagoo aad u labisan una socda shaqo. waxaan meeshii ku nagaaday oon joogay ilaa ay ka soo noqdeen shaqadii. gurigaygii ayaanan iska aaday markii dambe. maalinkii labaad iyo maalinkii saddexaadba waan imid laakiin nasiib darro ma arag xaaskaygii. waxaan isidhi amay dhimatay. haddana waxaan isidhi waxaad arki lahayd dadkoo u tacsiyeynaya. waan iska soo laabtay laakiin ma samri karin. maalinkii afraad ayaan soo aaday gurigii si aan meel fog uga soo fiiriyo bal inaan arko wejiga xaaskayga. albaabkii ayaa la furay. meel fog ayaan ka arkay wejigeedii. waan u soo dhowaaday mise wejigeedii waa guduudba oo jirkeedii wuu bedelmay. waan u sii dhowaaday ilaa aan aad uga argagaxay oo aan arkay dhiig dharkeedii dhan ku malaasan tabardarro iyo daciifna ay ka muuqdaan. way ila hadashay waxayna igu tidhi wacadkii ayaan ku suganahay laa ilaaha illaa huu. soo gaarina wallaahi ma dhammo wixii soo gaadhay asxaabadii. markaa ayay tiri gurigii ku noqo oo ha ka soo bixin. waxaan kaa codsanayaa inaanad soo dhex gelin aniga iyo qoyskayga. ducada badi, salaatuleylkana tuko, qur-aan akhriskana badi. insha allah waxaan kuu imanayaa mar dhow anaana kuugu iman doona guriga. waxaan iskaga nagaaday gurigaygii maalin dhammaystiran. waxaa xilli habeen badh ah laygu soo garaacay albaabka. waan naxay. waxaan isidhi ma kuwii ayaa gurigaaga soo ogaaday. waxaana sawirtay geeri. anoo yaaban ayaan soo istaagay idhina yaa waaye qofka albaabka garaacayay. cod deggan oo tartiib ah ayaa laygu yidhi waa aniga. waan ka furay. waxay igu tidhi inakeen aan tagnee. waxayna bilowday inay urursato dharkeedii kuna xirtay boorsadii. waxay iska siibtay indhashareerkii iyo dharkii ay wadatay. waxayna xidhatay cabbaayad. tagsi ayaanan qabsannay. way daalanayd. xaaskaygu xoogaa ayay baabuurkii dhexdiisa isku tuurtay. anna afka ruushka waxaan ka aqaanay inagee eeriboodka laakiin waxay tidhi hanageyn nagee tuulo heblaayo. markaas ayaan idhi oo miyaanan baxsanayn. haa ayay iigu jawaabtay laakiin meesha ugu horraysa ee layga soo raadinayay waa eeriboodka. markaas saas ayaan u doorannay tuuladaas. tuuladii ayaan gaadhnay. waxaana ku yaalay madaar aad u weyn oo caalami ah. guri u dhow ayaanan degnay. waxaanan dareennay amni. waxay xidhatay dharkeedii. waxaanan weydiiyey wixii ku dhacay iyo siday u ciqaabeen. markaas ayay igu tidhi markii aan gallay guriga ee aan la fadhiistay ehelkaygii ayaa waxay igu yidhaahdeen dharkana aad wadato waa maxay. waxaan ugu jawaabay waa dharkii islaamka. waxayna isii weydiiyeen waa ayo ninkan kula socdaayey. waxaan ugu jawaabay waa ninkaygii. waa nin muslim ah. markaan islaamay ayuu i guursaday. markaas ayaa waxay igu dhaheen suurtagal maaha. markaas ayaan ku idhi idhegaysta haddaba aan idinka sheekeeyo sidaan u islaamay waxaan ugu sheekeeyey qisada ninkii naga kaxeeyey halkan oo aan ku idhi ma aanu doonayn inaan alaab ka ganacsanno laakiin waxa uu doonayay inaan jidhkeennaga ka ganacsanno. arrinkii markaan ka diiday ee aan ka soo cararay ee aan adiga ku imid ee saana ku islaamay ayaan uga sheekeeyey. markaas ayaa waxay igu yidhaahdeen inaad noqoto gabadh
gabadh jidhkeeda ka ganacsata ayaa agteena ka fadli badnaa inaad noqoto gabadh muslimad ah. Waxayna igu dhaheen gurigeenna ka tegi maysid ilaa adoo ordagis ah maahine ama meyd ah. isla markiiba si garbaduub ah ayay ii xireen. adiga ayayna ku yimaadeen si ay kuu garaacaan. codkaaga waan maqlayay, i gargaar markaad dhahaysayna waan maqlayay, laakiin anigu waan xirnaa, waxna kuumaan qaban karayn. mar alla markii aad adigu baxsatay ayay walaalahay aniga ii soo laabteen, way i caayeen, way i karbaasheen, si xun ayayna ii garaaceen. iyagoo bud ila dhacaya maalin walba waxay garaaca igu bilaabayeen salaada casar kadib ilaa xilliga hurdada laga gaadho. habeenkii oo la kala seexanayo, subaxdiina way baxayeen walaalahay iyo aabbahay si ay u shaqo tagaan. hooyaday iyo gabadh yaroo ila dhalatay ayaa guriga sii joogayay. waxaa ii imaan jirtay walaashayda yar, 15 jir ayayna ahayd, wayna igu qosli jirtay xaaladda aan ku jiro wakhtigaas oo ani ii ahaa wakhtiga aan nasanayo. markaas ayaa waxay tidhi, Khaalidow ma rumaysanaysaa haddaan ku dhaho hurdadaydu waxay ahayd marka aan miyir doorsoomo, say ii garaacayaan ayaan seexan jiray, inta kalena waan soo jeedaa. waxay iga codsanayeen inaan diinta islaamka ka laabto, anigana waan diidayay, waanan ku samray dhibaatada iyo ciqaabka ay igu hayaan. gabadha yarayd ayaa waxay guda gashay inay i weydiiso waxa aan uga tegay diinta aabbo iyo tii hooyo. qisadu waxay nooga sii socon doontaa halkaasi. kulanti wacan.